بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada saakay barnaamijka aan idin kugu haynana waxa kamid ah Mareykanka oo sheegay in Turkiga uusan heli doonin dayuuradaha dagaalka ee F-35 isla markaasna Israa'iil aysan ula sinayn Turkiga Trump oo si rasmi u xaqiijiyay inay socdaan dadaalo ku aadan in wada xaajood lala galo Iiraan laakiin tilaabo military meesha uusan ka saarayn dhinaca kale madaxweynaha Iiraan ayaa isna xusuusiyay Mareykanka in dagaal labada dhinacba dan aysan ugu jirin Turkiga oo la sheegay inuusan ka qayb noqon doonin heshiiska difaaca ee Sacuudiga iyo Pakistan Mareykanka oo Israa'iil 6 bilyan oo dollar kaga iibinaya hub noocyo kala duwan ah oo ay ka mid yihiin dayuuradaha dagaalka ee qomaatiga u kaca Sacuudiga oo si cara leh uga hadlay wararka sheegaya in Mareykanka uu ku qalqaalinayo duulaan lagu qaado Iiraan Shiinaha oo bilaabay dowlatus military oo lagu sifeeyay diyaar garow dagaal dhamaan wararkan iyo waliba qodobo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka xulashada wararka soo dhawaada marka la daawaday si aad ula socoto una hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa Shiinaha oo sameynaya dowlatus lagu sifeeyay diyaar garow dagaal waxa aad loo hadalhayaa sanadka foodo inagu soo haya ee 2027 Shiinaha inuu duulaan ku qaado jasiiradda Taiwan dhowr arrimood ay arrimahani calaamad u ah marka koowaad mas'uul sare oo ka tirsan ciidamada waddanka Mareykanka ayaa si cad wuxuu u sheegay in la filayo Shiinaha inuu weerar ku qaado jasiiradda Taiwan waliba Congress-ka Mareykanka ayuu ka hadlay waa taliyaha ciidamada badda Pacific waxa kale oo leeyahay Shiinaha waxa dhiirigelinaya laba qodob oo kale waa tan koowaad ee dagaalka Ukraine uu dhiirigelinaya oo Ruushka uu ku qaaday Ukraine isla markaasna uu qabsaday 4 gobol haddeertaana laga wada hadlay in loo daayo labada gobol ee Donetsk iyo Luhansk oo la isku yiraahdo Donbas laakiin arrintu waxay u sii xalaalowday baa leeyahay Shiinaha weerarka Mareykanku ku qaaday Venezuela mararka qaarkood siyaasadda marka la fiirsho caalamkana Trump waxa moodaa Taiwan inuusan muhiimad siinayn asaga markaasi loo daayo Latin America ha noqoto Venezuela Cuba Colombia gacanka Panama wadamadaas la isku yiraahdo Latin America in looga haro jasiiradda Greenland uu qaato Iiraan meel uu saaro Shiinaha hadduu doono markaa qaato Taiwan Ruushka hadduu doono qaato gobolada qaarkood ee waddanka Ukraine Shiinaha marka hadda wuxuu ku jira abaabul haddaba aynu eegno warbixin ay qortay wakaaladda wararka Xinhua ee laga leeyahay waddankaasi Shiinaha ciidamada qalabka sida ee Shiinaha ayaa waxay bilaabeen dowlatusyo military oo lagu tilmaamay heegan dagaal kuwaasi oo ay ka qayb galayaan diyaarado dagaal iyo maraakiib ciidan waxaana uu ka socdaa badda koonfurta Shiinaha sida ay warisay warbaahinta dawladda taliska koonfureed ee ciidanka xoreynta dadka Shiinaha ee loo yaqaano PLA ayaa abaabulay ciidamo badeed iyo kuwa cirka si ay u fuliyaan hawlgallo kormeer oo ku saabsan heeganka dagaalka kuwaasi oo ka dhacay biyaha iyo hawada ku hareeraysan aagga la yiraahdo Huangjian Do oo ah dhul lagu muransan yahay isla markaasna ay sheegato Philippines goobtan waxa loo yaqaanaa Scarborough School waxaana muddo dheer ahayd meel ay isku hayaan Beijing iyo Manila iyadoo muranka badana uu sii xogeystay sanadihii la soo dhaafay warbaahinta dawladda Shiinaha ayaa sheegtay in tan iyo bishii January taliska militarigu uu kordhiyay kormeerka xagga cirka iyo badda si uga hortago daandaansi iyo ku xadgudubyo ay sameeyaan dalal ka tirsan gobolka isla markaasna Shiinuhu uu ilaaliyo madax banaanida iyo amniga qaranka dalka muuqaal ay baahiyeen ciidamada Shiinaha ayaa waxay muujinayaan diyaarad nooca H6K ah oo hubaysan gantaalo lidka maraakiibta iyo waliba maraakiib dagaal oo casri ah oo ka qayb qaadanaya tababaradan ayaa imaanaya xilli wasaaradda gaashaandhigga ee Shiinuhu ay shaacisay baaritaano lagu hayo laba sarkaal oo sarsare taasi oo xoojisay dareenka iyo xaaladda kacsan ee gobolka
halkaas marka waxaa ka muuqata shiinaha inuu isdiyaarinayo waa hagaag qodobkaas halkaas ayna kaga gudubno dhowaan waxaa soo baxay war sheegaya turkiga inuu ku biiri doono heshiiska difaaca ay kala saxiixdeen wadamada sacuudiga iyo bakistan bishii sebtembar ee sanadkii ina weydaartay wararka qaarkood waxay lahaayeen waxaa la dhisi doonaa neytadii islaamka macnaha isbahaysi sida neyto oo kala oo dhex maraya bakistan oo nuclear ku hubaysan sacuudi oo dhaqaalahaya iyo turkiga oo ciidan iyo qalab military isnahaya arrinta marka waxaa leeyahay waxay ahayd arrin aad iyo aad wadamada dunida muslimka si weyn looga guuxay laakiin turkiga waxaa leeyahay arrintaasi kuma jiro aynu eegno war ay qortay wakaaladda wararka ee AFP sida ay warisay wakaaladdu turkiga kuma biiri doono heshiiska difaaca ee wadajirka u dhexeeya sacuudiga iyo bakistan waxaana wakaaladdu ay soo xigtay ilo wareedyo militariga sacuudiga ka tirsan warar hore u soo baxay ayaa sheegaya in saddexda dal waa sacuudiga turkiga iyo bakistan ay dhisayaan isbahaysi xoogan laakiin warkaasi la beeniyey waxaana turkigu la sheegayaa in uusan qayb ka noqon doonin heshiiskan difaacan u dhexeeya oo keliya sacuudiga iyo bakistan ila wareedyo ka tirsan dalalka khaliijka ayaa sidoo kale xaqiijiyey arrintan waynu arki doonaa arrintaas wuxuu kusoo kordha markaan waxaynu eegaynaa war weyn oo kasoo yeeray maraykanka diyaaradaha la yidhahdo F-35 ee jiilka shanaad bariga dhexe oo idil waxaad ka haysatay Israa'iil oo keliya laakiin ma jirto cid kale oo haysata bariga dhexe sacuudigan lacagta dhowrka bilyan ma trilyan siinaya maraykanka ma haysto qatar ma haysato imaaraadka carabtu ma haysto turkiga marka doonayay bacdama uu neyto u yahay laakiin turkiga waxaa loogu diiday kadib markii uu ruushka ka soo gatay nidaamka difaaca hawada ee S-400 maraykanku marka waxay ku andacoonayaan qalabkan ruushka wuxuu basaasayaa diyaaradahan laakiin arrinta meesha ku jirta waxay tahay in aan la doonin diyaaradaha in la siiyo turkiga maxaa yeelay Israa'iil ayay isku awood noqonayaan hadda Israa'iil waxay ku sareysaa waa awoodda xagga cirka turkigu bacdama uu ka weyn yahay ka dad badan yahay ka ciidan badan yahay ka fiican yahay xagga ciidamada badda oo gujise badan iyo waxaas badan uu leeyahay laakiin marka laga hadlayo diyaaradaha dagaalka Israa'iil ba ku sareysa xagga ciidanka cirka gaar ahaan diyaaradaha oo qura inkastoo turkiga hadda uu bilaabay inuu dhiso diyaaradda yarada kan oo leeyahay waxay noqon kartaa jiilka shanaad laakiin uma dhigmato ilaa iyo hadda sida la xaqiijiyey F-35 waana sababta keenaysa turkigu in diyaaraddan la yirahdo Eurojet fighter uu ka soo iibsanayo wadamadan Europe oo Jarmalku uu riixay shuruudihii uu ku xiran waxaa ka mid ahaa Sweden inay ku biirto NATO uu aqbalo in diyaaradaha laga iibiyo marka hadda waa la ogolaaday heshiiskaasi diyaaradahaasi marka way tegi doonaan waana diyaarad ay soo saareen dhowr wadan oo reer Yuruba marka haddii turkigu isku fulan yahay xagga diyaaradaha F-35 uma baahdeen Eurojet fighter uma baahdeen laakiin wuxuu fahamsan yahay in Israa'iil weli taaka ay dheertahay xagga awoodda ciidanka ra'iisul wasaaraha Israa'iil si toos ay wuxuu u yiri ma aqbali doono in laga iibsho F-35 turkiga laakiin kulankii bishii September ka dhacay aqalka cad ee waddanka Mareykanka oo ay yeesheen Donald Trump iyo Erdogan oo waliba Trump uu leeyahay ninkan waa nin saaxiibkaya su'aal baa dadka wararka fidiya weydiin waxa la yiri diyaaradaas ma laga iibinayaa turkiga wuxuu arrintaas meel fiican bay maraysaa laakiin shuruud wuxuu ka dhigay xilligaasi in uu joojiyo turkigu shidaalka uu ka soo iibsado ruushka uuna celiyo nidaamkan difaaca gantaalada S-400 labadii qodob turkigu ma sameyn maraykanku marka waxay yaqaaneen siyaasad qof baa laga hadal siyaa marka madaxweynuhu ma hadlayo xogayaha amuuraha dibadda Marco Rubio ma hadlayo xogayaha dagaalka Pete Hegseth ma hadlayo qof kale ma hadlayo laakiin safiir iyo sarkaal ka tirsan waaxda amuuraha dibadda iyo qof aqalka cad ka tirsan baa laga hadal siyaa hadda xalay waxaa hadlay safiirka maraykanka u fadhiya Israa'iil waa nin Israa'iil ma ahan siyaasad xag diin buu aaminsan yahay waa qoryaha Kirishtanka ah oo aaminsan in laga barakaysto Israa'iil iyo dadka Yuhuudda wuxuu leeyahay
وواجب دينية إن إسرائيل تاجره ما كوكب بيبقى هذا ونك يري وما أقون سنة دانتا قلبي دوحة اللي هذا دولك فلسطين ما قاعد مو أقون سنة بقى أنا وحن أقارنا جودية سمارية وحلي هذا جودية سمارية ومقع دول كان دانتا قلبي يا فلسطينيين ويقان كتابك توراتك ما حد عيبك hadda ka marka laga doodayay arintan ninkan wuxuu yiri meeshaas waxa ma ka dhisanaya aniga shakhsiyan waa safiirkii Mareykanka anigu meeshaas waxaan ka dhisan doonaa buu yiri guri aan ku dalxiiso haddaba xalay marka muxuu sheegay wuxuu la hadlay warbaahinta Israa'iil gaar ahaan telefishinka Kanal 12 safiirka Mareykanka u fadhiya Israa'iil Mark Huckabee ayaa sheegay in Turkiga warigiis uusan heli doonin ama uusan iibsan doonin diyaaradaha dagaalka ee F-35 inkastoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu horay u sheegay in wada hadallada arrimahaasi ku aadan ay marayaan meel wanaagsan waraysi uu siiyay telefishinka Kanal 12 Huckabee wuxuu sheegay in Israa'iil iyo Turkigu aysan isku heer ka ahayn xulafada Mareykanka hadalkaasi oo loo fasirtay in Israa'iil uga sokayso Turkiga Mareykanka Mark Huckabee ayaa wuxuu ku daray in arrinta u baahan tahay ansixinta sanadka taas oo uu sheegayo inay u badan tahay inaysan dhacayn isla markaasina Turkigu sharci ahaan uusan heli karin dayuuradahaasi ilaa wax weyn uu ka bedelo qalabka militariga ee Ruushka ee uu haysto Huckabee ayaa sidoo kale sheegay in Turkiga iyo Qatar aysan door ka ciyaari doonin maamulka Gaza balse rajadu ay tahay inay gacan ka geystaan hubka dhigista Hamas qodobkaas laftigiisa aan dul istaagno dagaalkan Gaza iyo maxaabiista la soo daayay haddii uusan Erdogan meesha ku jirin dagaalkan labana joojiyeen maxaabiista lama soo daayeen laakiin markii hore waxaa la yiri waxaa ka mid noqonaysa ciidanka xasilinta Gaza bajoojinta waa la samaynayaa xuduudda Israa'iil baa ciidankaasi la geynayaa Israa'iil ciidankeeda la baxaysa ciidankaasi waxaa la dhex dhigi doonaa Israa'iil iyo Gaza Gazana kuma duuli doonto Israa'iil lama soo duuli doonto sidaas ayuu Erdogan ku aqbalay iyo hogaamiyaasha kale carabta arrintii arrintii markuu isbedeshay natiyaha wuxuu leeyahay aniga ma ogoli wax la yiraahdo ciidan Turkiya qadarna ma arki karaba hadalkiisa marka hadda maxaa ku jira Mark Huckabee qaybta ugu dambaysa macnaha dadka wax falanqeeya iyo saxaafadda waxa la yiraahdaa labada sadar dhexdooda ayaa wax laga eegaa muxuu yiri safiirka Mareykanka Turkigu qayb ka noqon maayo silinta Mareykanka Gaza macnaha ciidan ma soo diri karo laakiin wuxuu gacan ka geysan doonaa hubka dhigista Hamas haddii marka Turkigu intuu meesha fariisto uu yiraahdo markii hore ana maxaabiistan ka soo daayay Hamas oo ka dhaadhiciyay heshiiskan waayo Sacuudiga iyo Imaaraad iyo cid kale oo la hadli kartay ma jirin Hamas waa Turkiga iyo Qatar waliba Qatar xitaa way ka diideen waxay anaga maxaabiis ma dhiibayno laakiin markii arrinta la isla fariistay oo Erdogan la fariistay oo aqalka la isla fariistay isaga laftigiisa danuu wataa Erdogan heshiiskaas loo soo bandhigay wuxuu arrinta marka xuquuqdooda ku heli karaan dadka Falastiiniyiinta laakiin waxa muddo arrintii natiyaha in lagu riixay uu leeyahay aniga ma ogoli waxa la yiraahdo Turki marka labada arrimood ninkan baad loo soo dhiibay marka waxa laga warsugi doonaa Turkidu maxay dhigi doonaan dabcan markii warkan uu soo yeeray waxa imaan doonta in wafdi kamida dowladda Turkiga ka socda ay tagi doonaan Mareykanka waa laga yaabaa hakaan fiidaan inuu tago ama Erdogan ku dhiisa waayo wixii la isku ogaa dhamma meesha ka baxay way qodobka sarkaasana ka gudubna dhinaca kale waxaan eegaynaa haatan Mareykanka oo hub hor leh ka iibinaya Israa'iil waxa kamid ah diyaaradaha qumaatiga oo ka cagaaraha nooca la yiraahdo Abacha waa diyaaradaha casriga hub qiimo kala duwan ayaa kamid ah haddaba warbixin amuurahan ku aadan waxa soo jeedinaya wariyahayaga Cabdi Fataax Mawlid Xaaji Cabdi waaxda dagaalka ee Mareykanka ee loo yaqaan The Pentagon ayaa shaacisay in waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ansixisay heshiis qiimihiisu yahay 6.5 bilyan oo dollar oo Israa'iil looga iibinayo agab military kaasi oo kala baxay 3 qandaraas oo kala duwan bayaano kala duwan oo ka soo baxay Pentagon-ka ayaa lagu sheegay in la ansixiyay iibinta gaadiid fudud oo istiraatiiji ah iyo qalabkooda oo lagu qiyaasay 1.98 bilyan oo dollar iyo heshiis kale oo lagu iibinayo 30 helicopter oo nooca AH-64E Apache ah
kuwaas oo qiimahoodu gaarayo 3.8 bilyan oo dollar. sidoo kale waxaa la ansixiyey qandaraas military oo saddexaad oo qiimihiisu yahay 740 milyan oo dollar. shirkadda AM General ayaa ah qandaraaslaha ugu weyn ee heshiiska koowaad, halka Boeing iyo Lockheed Martin ay yihiin qandaraaslayaasha waaweyn ee eebinta helikobtarada Apache. waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in Maraykanka ay ka go'an tahay amniga Israa'iil, isla markaana ay muhiim u tahay danaha qaran ee Maraykanka in la taageero horumarinta iyo joogtaynta awood difaac oo xoogan oo wax ku ool ah. waxa kale oo ay sheegtay in Koongareeska lagu wargeliyey heshiisyadaas. wargeyska Financial Times ayaa talaadadii sheegay in Israa'iil ay isu diyaarinayso wada hadallo ay la yeelato maamulka Donald Trump si looga shaqeeyo heshiis amni oo cusub. Israa'iil ayaa la filayaa inay mudnaanta siiso mashaariic wadajir ah oo militari iyo difaac ah, halkii ay ka qaadan lahayd gargaar lacageed, iyadoo heshiiska la filayo inuu socdo 10 sano, lana doonayo in lagu kordhiyo taageerada militari ee Maraykanka. Maraykanka ayaa sanad walba Israa'iil u dira qalab militari oo malaayiin dollar ah, inta badanna waa gargaar toos ah halkii uu ka ahaan lahaa iib, wuxuuna si militari ah u taageeray intii lagu jiray dagaalka ka socda Gaza ee ka badan 2 sano. Cabdifataax Maliid Xaaji Cabdi, HBN Online TV. waa hagaag Cabdifataax aad buu mahadsan yahay. daawadayaal, goorna waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Maraykanka iyo Iiraan. Trump oo bedelay luuqadii hadalka, isla markaasina sheegaya wadaxaajoodin ay la gelayaan Iiraan. dhinaca kalena dagaal buu weli ku sii hanjabayaan. waxaan kaloo eegi doonaa warar kale oo la xiriira isla arrimahan. intaan u gudbin aynu ku hakanno qadar xayeysiin. soo dhawaada mar kale daawadayaal. waa tahay xiisadda Maraykanka iyo Iiraan aynu eegno, iyadoo dagaal qarka loo saaran yahay ayaa waxaa ilaa iyo xalay soo baxaya hadallo iyo didilo leh. Iiraan horey waxay u xaqiijisay in ay socdaan wada hadallo. geesta kale, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isna wuxuu xaqiijiyey in Maraykanku uu qorsheynayo in heshiis wada hadallo ah ula galo Iiraan, isagoo sheegaya in Washington ay rajaynayso in tani ay ka hortagi karto isku dhac militari. Trump oo la hadlayay dadka wararka fidiyaha ayaa sheegay in wadaxaajoodyadu ay socdaan, inkastoo aysan jirin faahfaahin ku saabsan goorta ama sida ay u dhici doonaan wada hadallada. waxaa intaasi ku daray in Washington ay xoojinayso joogitaankeeda ciidan ee gobolka, isla markaasna ay u diyaarsan yihiin haddii loo baahdo tilaabo militari. waa sida hadalka u dhigay. Trump wuxuu carabka ku adkeeyey in Maraykanku uu haysto ciidamo badeed oo aad u weyn, kuwaasi oo ku dhow Iiraan, isagoo rajaynaya in aan la adeegsan ciidan, laakiin wada hadalladu ay noqdaan kuwo waxtar leh. dowladda Maraykanka ayaa dhistay ciidamo xooggan oo gobolka isugu geysay. arrintanna waxay imaanaysaa xilli xiisaddu ay sii kordhayso. war kale oo arrimahan ay la xiriira, madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in isagoo la hadlayay dhiggiisa Masar Cabdulfataax al-Siisi in Teheraan aysan doonayn wax iska horimaad ah oo ay la gasho Maraykanka, isla markaasna dagaal dan uusan u ahayn midkoodna. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan weligeed ma raadin dagaal, mana raadinayso sinaba, waxayna si adag u aaminsan tahay in dagaal uusan dan u ahayn Iiraan iyo Maraykanka ama gobolka, ayuu yiri Pezeshkian. wahagaag 24 saac la soo dhaafay waxaa soo baxay war sheegaya in Sacuudiga uu ku qalqaalinayo Maraykanka duulaan inuu ku qaado Iiraan. shabakadda Axios ee laga leeyahay Maraykanka ayaa warkaasi faafisay, laakiin dowladda Sacuudiga ayaa arrinkaasi si adag uga hadashay. aynu eegno warbixintan. mas-uul sare oo ka tirsan dowladda Sacuudiga ayaa waxa uu u sheegay wargeyska Sharq al-Awsat in wararka ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta oo sheegaya in Riyaad ay bedeshay mowqifkeeda ku aadan sii hurinta xiisadda gobolka ay tahay mid aan sax ahayn. mas-uulka ayaa carabka ku adkeeyey in Sacuudigu si buuxda u taageersan yahay dadaalada lagu raadinayo xal nabadeed oo lagu dhameeyo khilaafaadka u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan, iyadoo loo marayo wada hadal iyo dariiq diblomaasiyad. wuxuu sidoo kale caddeeyey in boqortooyada ay si cad u diidan tahay in hawadeeda ama dhulkeeda loo adeegsado weeraro militari oo ka dhan ah Iiraan. way arrinta marka maxaa lagu macnayn karaa? dad badan waxay ku fasirayaan inay tahay in la iska hor keeno Sacuudiga iyo Iiraan. wadamadan hadda gobolku isfahmeen. imaaraadka carabta oo imaaraad ah oo aad ugu dhow Israa'iil iyo Maraykanka ayaa diiday hawadiis in la isticmaalo. wadamadan marka way diideen. Sacuudiga soo si cad buu u sheegay
laakiin Axios ba waxay abuurtay war ah Sacuudiga Mareykanka ku qalqaalinay Iiraan la weeraro Sacuudiga isla maanta ayay warkii soo tuureen waxay leeyahay anaga waxaas ma jirto hawadeena ma la isticmaali karo dhulkeena ma la isticmaali karo sababta Iiraan si cad bay u sheegtay dhammaan wadamada gobolka ee dariska la ah ama kuwan carabta muslimiinta iyo kuwan kale ee dhankan Asia ha noqoto Azerbaijan iyo Turkmenistan iyo Pakistan iyo Afghanistan annaga waxay tirahdeen meeshina kaga soo duulo waa isku si waaye qodobkaas halkaas ayna kaga gudubno inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka